بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jirtay islaan waayeel ah oo biyaha ku soo qaadan jirtay laba weel oo ay haysatay. labada weel ayaa ul intay ku xirtay waxay soo saaran jirtay garab, waxayna biyaha ka soo dhaansan jirtay wabi ku yaala tuuladii yareed ee ay deganeed agteeda. laakiin labada weel mid ka mid ah ayaa jeexnaa oo biyaha qayb kala bar soo daadin jiray. markay guriga keento labadii weel midkii biyaha soo daadinayay biyihii kala bar ayuu soo daadiyaa, asagoo haaf ah ayay guriga keenaysaa. intii kale jidka ayay uga soo daadanayaan, uga soo dhibdhibcayaan. sidaa ayay markasta ku dhaansan jirtay. 2 sano markay waday biyahaas ay soo dhaansanayso, labada weel oo mid uu duleelsan yahay ku soo dhaaminayso ayaa waxaa la hadlay weelkii. wuxuu yiri waxaan ka xishoonayaa oo aan ka khajirsanahay in tacabkaadii iyo daalkaadii iyo culayska soo qaadaysay uu meel cidla kaaga soo dhamaaday oo biyihii ayagoo haaf ah aad guriga keenayso, asagoo buuxana aad biyihii ka soo qaaday. islaantii way dhool cadeysay, waxayna ku tiri ma aragtid miyaa ubaxyada ka soo baxay jidka dhinaca aad adiga biyaha ku daadanaysay. waxaan ku abuuri jiray oo aan jidka ku daadin jiray miraha ubaxyada, kadibna biyahaada markay ku daataan ubaxyo ayaa ka soo bixi jiray. ubaxyada jidka ka soo baxa gurigayga ayaan ku quraxsan jiray. marka biyihii aad soo daadisay waxaa ka dhashay ubaxyada quruxda badan iyo gurigeennii inuu noo qurxanaado. waxay tiri marka ma ujeedid qisadaani waa qiso tusaale loo soo qaato inaan aqbalno dulduleelada ay leeyihiin dadka aan la noolnahay oo aan ku qasbannahay dabcan, iyo inaan u bedelno dulduleeladaasi ama kala duwanaanshahaasi ama ikhtilaafkaas waxyaabo wanaagsan oo qurxan. sida islaantaanba biyihii ka daadanaya ay ugu bedelatay wax qurux badan oo ay uga faa'iidaysatay. dabcan weelkii duleelkiisii ma celin karto, biyihiina iskama dayicin oo iskama daadanin, laakiin waxay keentay fikrad ah in biyahan ka daadanaya ay uga faa'iidaysato jaanib kale oo markaa meesha ay ubaxyo ku abuurto, ubaxyadiina ay gurigeedii ku qurxiso. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asxaabta qiimaha badan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi